Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeena Hogan 24 Media. Waxaan maanta warbixinteena idinkugu soo gudbinaynaa nin ku caan baxay islaam nacaybka oo lagu weeraray waddanka Mareykanka ee magaalada New York. Haddaba intaan u gudagelin muuqaalkeena, fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe inoo saar, gabalaalkana furo si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelino channelkeena. Haddii aad ka heshayna muuqaalkan, like inoo saar si aan u ogaano tirada danaynaysa barnaamijyada noocyadan oo kale ah. hana hilmaamin inaad asxaabtada la wadaagtid adigoo sheergaranaya muuqaalkan. mahadsanid. Salman Rushdie wuxuu ka mid ahaa qorayaasha ugu caansan Britain. wuxuu sanadii 1981 qoray buuggiisa Midnight Children ee uu abaalmarinta ku helay. sanadii 1988 wuxuu soo bandhigay buuggiisa afraad The Satanic Verses oo macnaheedu yahay aayadaha shaydaanka. buuggan ayaa dhaliyay muranka ugu badan waxaana ka dhashay caro iyo hanjabaad xooggan oo aan horey loo arag. muslimiin badan ayaa ka carooday buuggan Salman Rushdie. waxay sheegeen inuu buuggan uga been sheegtay rasuulka naxariistii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo diinta islaamka. Salman waxaa loogu hanjabay dil. waxay hanjabaadaasi ku khasabtay in uu galo dhuumaaleysi. wadda Britain ayaa si weyn u ilaalinaysay ammaanka Salman. sidoo kale dowladda Iran waxay xilligaas xiriirka u jartay dowladda UK iyadoo ka caraysnayd buuggan Salman uu qoray. hogaamiyihii Iran Ayatollah Khomeini ayaa soo saaray fadwo uu ku baaqay in la dilo Salman sanadii 1989 sanad kadib markii uu daabacay buugga. hase yeeshee reer galbeedka iyo qorayaasha iyo waxgaradkooda ayaa dhaleeceeyeen halista ka imaanaysa xorriyadda hadalka ee ka dhalatay falcelinta qalafsan ee buuggaas. Salman Rushdie wuxuu ku dhashay magaalada Mumbai ee dalka Hindiya 2 sano ka hor xorriyadda Hindiya oo uu gumaysan jiray waddanka Ingiriiska. markii uu jiray 14 sano wuxuu tagay Ingiriiska. wuxuu iskuul ka galay magaalada Rugby. markii dambe wuxuu shahaadada jaamacadda koowaad ee culuumta taariikhda ka qaatay jaamacadda King College ee ku taala Cambridge. intaas kadib wuxuu helay dhalashada Britain. wuxuu ka baxay diinta islaamka. wuxuu muddo kooban ahaa majaajilayste. markii dambe waxbuu xayeysiin jiray isagoo qoraa ah. Sebtembar sanadii 1988 wuxuu qoray buuggiisa The Satanic Verses kaasoo ka caraysiiyey muslimiin badan taasoo ay ku sheegeen inuu aflagaadeeyey diinta islaamka iyo Nabi Maxamed naxariistii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Hindiya ayaa noqotay dalkii ugu horreeyay ee mamnuuca buuggaas waxaana ku xigay Pakistan iyo dalalka islaamka. sidoo kale dalka Koonfur Afrika ayaa ka mid ahaa dalalkaas. buuggan wuxuu helay aqoonsi balse waxaa sii xoogaystay dibadbaxayaasha laga soo horjeeday qoraaga buugga. muslimiin badan ayaa buuggiisa u arkayay aflagaada ka dhan ah diinta islaamka. bishii January sanadii 1989 muslimiinta ku sugnayd magaalada Bradford ee dalka UK waxay gubeen buugga halka wakaaladda wararka ee WH Smith ay joojisay inay soo bandhigto buugga. Rushdie wuxuu diiday in wax aflagaada ah uu geystay diinta islaamka. sidoo kale magaaladii uu ku dhashay Salman 12 qof ayaa ku dhimatay dibadbaxyo rabshado watay oo ka dhacay halkaas. waxaa sidoo kale dhagaxaan lagu weeraray safaaradda UK ee dalka Iran. waxaana $3 milyan la duldhigay madaxa Salman Rushdie. xilligaas muslimiinta qaar ee UK waxay ku baaqeen in arrinta Salman ay dhexdhexaad ka noqdaan halka kuwa kalena ay taageereen hadalka hogaamiyaha Iran Ayatollah. wadamada Faransiiska, Mareykanka iyo dalal kale oo reer galbeed ah waxay cambaareeyeen hanjabaadda dilka ee ka dhanka ah Rushdie. tan iyo wixii xilligaas ka dambeeyay Rushdie iyo xaaskiisa ayaa dhuumaaleysi ku jiray iyadoo si weyn loo ilaalinaya amnigooda. Salman Rushdie oo sanado badan loogu hanjabaya dil kadib markii uu qoray buuggaas oo uu ciwaan uga dhigay aayadaha shaydaanka iyadoo uu ku aflagaadeeyey Qur'aanka Kariimka ah ayaa lagu weeraray masrax ku yaala gobolka New York isbuucan gudihiisa. wuxuu ka hadlayay munaasabad ka dhacday macadka Chautauqua waqtigii uu weerarka dhacayay. booliska gobolka New York ayaa sheegay in nin laga shakisan yahay uu ku soo orday masraxa oo uu weeraray Mr. Rushdie iyo wariyihii wareysanayay. Rushdie waxa uu dhaawac muuqda ka soo gaaray qoorta ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay booliska. qoraaga waxaa lagu qaaday diyaarad helikobtar ah oo la geeyay isbitaal deegaanka ah. xaaladiisa ayaana hadda la ogeyn sida ay tahay.
wariye Henry Rees oo ah wariyihii wareysanaya ayaa isna dhaawac fudud ka soo gaaray madaxa. Mr. Rees ayaa ahaa aasaasaha hay'ad aan dowli ahayn. sidoo kale eedeysanaha ayaa isla markiiba xabsiga la dhigay sida ay boolisku sheegeen. qoraagan u dhashay dalka Hindiya waxa uu caan ku noqday buug lagu magacaabo Midnight's Children oo uu qoray sanadii 1981 kaasoo 1 milyan oo nuqul lagu iibiyay gudaha dalka Ingiriiska. balse Mr. Rushdie buuggiisa afraad oo ciwaan uga dhigay hay'adaha shaydaanka oo uu ku aflagaadiyay diinta Islaamka ayaa ku qasbay in muddo 9 sano ah uu isqariyo. buuggan markii uu faafay waxa uu cara ka dhaliyay dunida muslimka maadaama lagu aflagaadiyay diinta Islaamka waxaana laga mamnuucay qaar ka mid ah dalalka Islaamka. sanad kadib markii la daabacay buuggan ayaa hogaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Ali Khamenei wuxuu ku baaqay in la dilo Rushdie isla markaana wuxuu ku yaboohay in ciddii hawshaas fulisa la siin doono lacag dhan $3 milyan. 10 qof ayaa ku dhintay rabshado ka dhashay buuggan lagu aflagaadeeyay diinta Islaamka. Mr. Rushdie oo 75 jir ah ayaa lagu xiray qalabka dadka neefta ka caawiya mana awoodo inuu hadlo iyadoo laga yaabo in mid ka mid ah indhihiisa ay soo gaarto waxyeelo aad u weyn sida uu sheegay wakiilkiisa. booliska dalka Mareykanka ayaa xiray tuhmane lagu magacaabo Hadi Matar oo 24 jir ah kana yimid Fairview, New Jersey. wax yar kadib markii uu ku orday masrax lagu wareysanayay Mr. Rushdie oo uu wareysanayay wariye ka tirsan macadka Chautauqua ee galbeedka New York. Salman Rushdie ayaa ugu yaraan 1 toorey looga dhuftay qoorta iyo caloosha sida ay mas'uuliyiintu sheegeen. booliska ayaa shir jaraa'id oo ay qabteen ku sheegeen in shaqaalaha iyo xubnaha goobta joogay ay ku xireen qofka weerarka geystay halkii arrintu ka dhacday oo ay waliba inta ay fiigeen dhulka dhigeen. waxaa intaa inoogu eg warbixinteennii oo aan idiin soo gudbinaya anigoo ah Cabdulle Macallim Alto. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan like saar subscribe dheh adigoo gambaleelka furanaya si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelina. hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo sheer garanaya muuqaalkan. mahadsanid.